xafladani oo ahayd mid lagu daafurayay shirkadda diyaaradaha ee Som Air oo lagu qabtay magaalada Nairobi ayaa waxaa ka qayb galay xildhibaan ka tirsan dowladda Kenya, mas'uuliyiinta shirkadda Som Air, xubno ka kala socday dhammaan shirkadaha duulimaadka ee ka howlgala dalkani Kenya, ganacsato, aqoon-yahano, waxgarad, haween iyo marti sharaf kale. shirkadda diyaaradaha ee Som Air oo ah shirkadda ay leeyihiin Soomaali ayaa bilowgii xafladda lagu daafurayay Maxamed Cabdi Xaliim oo kamid ah maamulka shirkadda Som Air waxa uu ka warbixiyay shirkadda isagoona ballan qaaday inay adeegyo fara badan ay u qaban doonaan ummadda Soomaaliyeed. Som Air waa company cusub oo Soomaali laga leeyahay dhalinyaro Soomaaliyeed asugu tagtay oo go'aansatay inay furaan company cusub. ما أهني ديار لانش تقولي ديار وانا شغال لكن واحد جرين كمبني صومالي ليه سألت كمبني طلع هاسكله للضوانو فوريانا مركب واحد قاسنا إن برسي أساسنا كمبني صومالي ميز كنا حمود ما صومالي أكلن ما وصومال صومال أكلن وأنا غريشو waxaan ku yeerno xaway inaad nala furtaan nala kicisaan nagu taageertaan hadaan dalku ku soo laabanayo araginaasha in laga qayb qaato oo qofka Soomaali uu jeclaado magac si uu soo raaco markale oo idin ma celinayna ma ahna wax qof gooni leeyahay maradi magac Som ku dhex jiro qofka saatalo ku leeyahay sheer laga siin karaa oo ku soo dhawaanaya anagana waxaan insha Allah ka shaqeynaa inaan idin diyaarino service ku wanaagsan hadoo la ka dhigo xarunteedu waa Muqdisho waxay tagi doontaa Saare Tempo dalalka Uganda, Ethiopia, Djibouti, Yemen, Dubai iyo Dumasfred locally معنا iyo Kenya oo xarunta ka bilaabanaysa road koowaad. mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dalkani Kenya oo kamid ah mas'uuliyiintii xafladda ka hadlay ayaa waxa uu si weyn u soo dhaweeyay shirkaddan cusub oo ay aasaaseen dhalinyaro Soomaaliyeed. bismillaahir rahmaanir rahiim. horta waxaan u mahadcelinayaa fursadan qaaliga ah isku dabariday ee maanta la isku imaaday oo xaflad qiimo leh oo beesharo weyn lagu bilaabayo. beesharadana faa'iido weyn bay keeni doontaa insha Allah. waliba waxaan ku sii faraxsan yahay dhalinyarada oo isku imaadeen oo lacag iska ururiyeen sifada yuradan oo Som Air Kenya ila Soomaaliya ila Entebbe Uganda ila Yemen ila Addis Ababa ila Dubai ka shaqeyn doonto. fursadan waxaan leeyahay insha Allah fursadan waa laga faa'iidi doonaa. faa'iidadana ma aha dadkii maanta bilaabo kale Soomaali weyn bay faa'iido u tahay, muslimka faa'iido u tahay, Kenya bay faa'iido u tahay, Soomaaliya faa'iido u tahay, iyo wadamada kulli aadi doonto. Soomaalida had iyo jeer wax kale ay ku dambeeyaan, laakiin xagga becsharada Ilaahay baa maaragtay hiba siiyay. hibadaasna waa inay ka faa'iido. meel kastoo aad tagto adduun weyne nin Soomaali beesharo falaya. gudoomiyaha golaha salaadiinta wacyigelinta iyo dib u heshiisiinta Soomaaliyeed Boqor Faarax Cabdi Goore oo xafladda ka hadlay waxa uu mahadceliyay ganacsatada Soomaaliyeed ee sameysay shirkadda diyaaradaha ee Som Air. tanay xafladan sida aadka u qiimaha badan leh furitaankeeda nasiibku u yeelanay inaan kala soo qayb galno caawa habeenkan Nairobi. runtii waxaan leeyahay waa xaflad aad u qiimo badan mana aan iloobi karno maxaa yeelay Soomaali diyaaradan magaceeda Somali Airlines waqtigii xilligii dawladda iyo laakiin hadda tan waxa lagu soo gaabay Som Air sida ila tahay. marka aad baan ugu faraxsanahay groupkan meesha ka soo qayb galay groupkan travel agency oo lagu martiqaaday xafladan insha Allah waxaan ka rajaynaynaa martiqaadkooda inay ka soo
kamid ah mas'uuliyiinta shirkadda ayaa gabagabadii xafladda waxa uu ka warbixiyay xilliga ay howlgeli doonto shirkadda iyo waliba wadamada ay xarumaha ku leeyihiin. diyaaraddu waxay bilaabi doontaa taariikhda September taariikh 4 bisha 9 taariikh 4 diyaaraddu waxay bilaabaysaa duulimaadkeeda. sidaad hore ugu aragteen programkana ugu aragteen timetable-kana ugu aragteen xafiisadeenu waxay ku yaalaan Nairobi, waxay ku yaalaan Isli Mall tabaqa 4 magaalada aad joogtid waxaad tagaysaa Barclays Plaza tabaqa 4 sidoo kale waxaanu ku leenahay xafiisyo Kampala, Muqdisho, airportka gudihiisa iyo banaankiisaba, Boosaaso, Hargeysa, Galkacyo, Kismaayo. sidoo kale international waxaanu ku leenahay Djibouti sidoo hore loogu magacaabay, Addis Ababa, Yemen, Dubai, USA. sida aad ugu aragteen timetable-ka. marka waxaan idinka codsanaynaa maadaama aad tihiin travel agency xafiisadeena aad booqanaysaan information kalkaasad ka helaysaan wixii qabada iyo su'aal wixii qabo xaggaas ay isugu imaanaysaan xaggaanu ku wada hadlaynaa. waa diyaarad loogu talagalay dadweynaha Soomaalida. Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto, Somali Channel, magaalada Nairobi.